waxaan joogi jiray xero qaxootiga la yiraahdo Kifali oo halkee ku taalo Uganda way saddex xad dhexdood ku dhex taala meel badan baan adigu waqti soo dhigay xeradaasaad waqti noloshaada kamid ku qaadatay 8 sano 8 ku dhab oo hoog iyo baa way saaxiibkii xaynoosh baa ku jiray malaas wasla joogni halkaan ka salaamaya aad iyo aad baan noo salaamaya way xeradaas wasla joogni way wax naga duubaan weyne wax badan baan ugu dhex jiray way dad fara badan baa laga yaabaa inaanay sawiran karayn nolosha xero qaxooti hadda sawir ka sii nin dhalinyara oo laba shay leh way oo labadaas shayna labadii weegba mar dhaqda biyaha laba shay waxaad uga jeedaa dharkii laba shay oo haay labadaas shayna labadii weegba mar uu dhaqdo biyaha uu cabanay yihiin biyo meel hara leh laga soo dhaamiyay oo kaneeca baa wadanka ku badanee kaneecadaas habeenkii ku ukuma dhashay dadka 90% waxa ku dhaca xanuun la yiraahdo BF oo madaxa ku dhaca aniga kula hadlaya 6 cisho oo noloshayda kamid ah waa waalaa kaneecadaas markii kugu dhacdo waad waalanaysaa ma tii xuftay wali adigu qarow ah oo nooc min jubbaanaad waalanaysaa way aniga marka waalidaydu waxay ahayd mid yara faniya way kaneecadaas ay ugu dhacday BF taa madaxa iga dhacday waxaan iska dhaadhiciyay nin qaadka gadi jiray inuu dhintay anoo gurigiisa hormaraya ninkiina wuxuu ku maqan yahay magaaladii weyneed oo qaadka laga soo qaadi jiray wuuba hurdaa reerkiisii cunto karinaya oo halkaas u fadhiyaan waxaan isri niyahow ninkaas hadduu dhintay reerkiisii tacsiin lacag buu kugu lahaaye lacagta kugu lahaa reerka iska sii reerkii baan intuu tagay baan 2,000 shilin oo Uganda inta soo saaray waxaan ku yiri qof kasta waa dhimanaya Allah u naxariisto marxuumka aniga 2,000 buu igu lahaa oo himba afka la jabsado telefoon laga waco male nad waaga meel yiraahdo loo tagaa telefoon ninkiina waa hurdaa telefoon qaban maayo biri qaadkii ahaa buu soo qaadaya 12 maalikii baa la wacay subaxii wuxuu soo galay reerkiiba saxmad bad gelisay saxmad tacsidii baa la dhiga subaxii wuxuu soo galay soo qaadkii sida waa la isweydiiyay warninkii waa nool yahay warka yaa keenay Omar warkaas Omar leeyma yaqaan Umar waa la yaqaanaa waa la raadiyay misageed hoostiisaan fadhiyaayo dabayaaqay igu sii tahay naftu markaan arkay dad badan oo igu soo socda baan carra waa la ciirsado way yaqaanaan ayagu dhaqanka qofka marka ma way ogyiin marka haaya diiran noqoto inta la qabtaa waxa lagu dhuftaa irbad la yiraahdo quinine irbadaas ama labada dhagood baad beelaysaa 30 cisho ama u dhimanaysaa irbad baa lagu dhuftaa quinine tahay 30 cishaan dhagala adigu waa ka soo kabtay 6 cisho oo noloshayda baan wala markii xeradaas sawir kale oo aan ka qaado oo aan kugu macneeyo ma garan karo marka raad intee lag bay noloshaada ku reebtay wallahi de Canada markaan imid diyaaradii ugu horreysay noloshayda aan fuulay Canada aan soo raacay Canada markaan imid baan habeenkii waxaan ku riyooday nin dhalinyaro ah oo meesha isla joognay oo idahaya Canada-dii aad tagtay iyo diyaaradaad raacday iyo wixii oo dhan hadday been ahaayeen oo hadda Uganda xeradii igala soo kacda ka war ku riyoodo marka heer waxay gaarsiisay aan ku riyoodo xataa هاي